tuulada yaaqle oo qiyaastii u jirta degmada Alcade ee gobolka Gaza 40 kiiloomitir ayaa waxaa ka jira biyo la'aan baxsan iyadoo wartii ay ka cabi jireen ay goobay dadka deegaanka waxa ay sheegeen in xaaladdu ay marayso meel khatar ah waxaana ay codsanayaan in gurmad degdeg ah la soo gaaro loona sameeyo biyo dhaamin waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha tuulada yaaqle oo ka warbixinaya xaaladda biyo la'aan ee ka jirta tuuladaas magacaygu waxaa leeyahay maxamed xuseen cabdille waxaan deganahay tuulada yaaqle oo fara badan iyo dhibaato fara badan baa ka jirto Alcade iyo Dhamaso iyo Gadino kala barkooda ku taana dad ma dhimanin laakiin oo dhibaato fara badan baa ka jiro dadka islaamka iyo hay'adaha islaamka iyo wixii wax noo gali karo ilaahay darti wax noo gali karo waxaan ka codsanaynaa biyo iyo baad iyo waxay heli karaan nolosha koobaadna waa biyo wixii noo gali karo carabaha islaamka iyo dadka muslimka waxaan ka codsanaynaa biyo haddii nala soo gaari karaan insha Allah deeqda ilaahayna waa rajaynaynaa laakiin biyaan ka codsanaynaa insha Allah haduu ilaahay biyuhu waxa weeye 45 kiiloomitir baa noogu sokayso wax biyo deegaanka sida dhadhaable oo kala diido orge meesha la yiraahdo Harbuunyo Harafaarax Qoriyow dhulkaas isku weerka oo adigu meesha ugu dhow ay tahay 25 kiiloomitir bay tuuladu waxay ka qaadan jirtay war ku taal meesha oo ilaahay biyo galiyo biyaha ayaga waa iska go'een balaayeero dadku umada ka qodatayna waa iska dhamaadeen dadkii xoolaydii iyo dadkii tuulada ahaa meeshii unayada ahayd abaar baa ku qabsatay sida ayada ahayd bay ku yihiin ilaahay fadligiis umba iska sugayaan beesha caalamka iyo islaamka dhan waxaan ka codsanaynaa in ay biyo nala soo gaaraan wax hadda meesha ku kala soo waa guddigii tuulada dhammaantood odayaashii cuqaashii waxgaradka dhan waxaan codsanaynaa in beesha caalamka iyo wax islaam ah oo islaamnimo u diray intaba ay naga soo gaaraan gurmad degdeg oo biyo u badan xasan waxaan deganahay tuulada la yiraahdo yaaqlo waxaana ka jira oon aad u daran waxaan cabi jirnay waran oo dhow ama warti yaaqlo kala waa go'day wariye area hadda noo dhawaana waa go'een marka dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan oo nasiyaan biyo meel hadda ay noo diraanba dadkan waxa ay abaar baan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa roob kadibna waxaan rabnaa insha Allah bari ilaahay nima deynino waxaan rabnaa inaan biyo dadka muslimiinta nala soo gaaraan magacaygu waxaa leeyahay Cabdiqaadir Cabdille meesha yaaqlan deganahay oo baan oo dhibaato badan baa ka jiro insha Allah ilaahay roobaan noo keeno waxaan ugu tari karo beesha caalamka iyo dadka islaamka waxaan ugu tari karo in wax ugu taraan baan codsanaynaa meeshaas oo dad badan iyo ummad badan ay ku nool yihiin u baahan waxtar u baahan waxaan codsanaynaa waxaan ugu taraan dadka islaamka oo wax ku tarjiyay sidii alraxmo kale inay wax ku taraan biyo dhaamin baa ka codsanaynaa inay biyo noo dhaamiyaan barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo Umar Cabdiraxmaan Sheekh intaan barnaamij midkan lamid ah ku kulmi doono nabadiin